عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جماعك حنا يكين ما أنتو حربا إنا نيجا لحظة hormonka but لكن إنتان قارين وحربا thank you so much إنا نيده for all the love, all the sharing and all the caring and all the comment and everything. Thank you so much, and please share more, please comment more and ask, tell me what to talk about, give me a content that I can create more. But maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo hormonka inaan igala hadlaan rabaa. Hormonka, there's a lot of hormones, laakiin hormonka kusabsan and especially female reproductive systemka aan rabaa inaan igala hadlo. Horta saddex waaye, laakiin labada hormoon ugu horeeya waxaa waaye FSH iyo LH. Follicle stimulated hormones iyo luteinizing hormone. Marka labadaas ugu horeeya, marka waxaa sameynaysa maalinta dhiiga laba uu ku yahay dhaqtarka clinic ugu horeeya. Hatta you don't have to go to specialist, you just can go to the nearest clinic and you just say that I need to do a blood work, and you just tell them that what blood that you need to do, and those ones are, or you can just tell them that the female reproductive system hormones go that in a video, and those ones are and you can add more, which is like testosterone, and testosterone mafiano wahawaye and inukubata mafiano wa hormonka oo nimanka anaka estrogen haysana iyo kana hormonka oo dhahay testosterone waa mid ka soo saaro garka, timaha, waxyaalahaas dhan mana fiicno inuu female ku badan yahay, because like wuxuu ka istaajinaya ovulation ku ka istaajinaya. Adada jiro oo qabo maxaa dhahay cudur la dhahay PCOS la PCOS, polycystic ovarian and polycystic ovaries syndrome aldaha. Labada oo minku gala, minka labadiisa min waxa ka soo baxayaan burobiyeed badana ka soo baxayso, and then ukuntii oo la rabay inay weynaato oo inay ka soo baxda markii oo waxa koos gareeyaan sheegaya polycystic ovary syndrome. Waxa koos gareeyo and high level of LH, the luteinizing hormone, the hormone anido way had iska soo fiiriya. If that hormone is high, then gabadha ovulation ma sameynayso, and then ukunteedana ma baqayso, unug ma noqonayso, kor ma soo aadayso. Ukunta it's not gonna burst, it's not gonna mature, and then so she's not gonna have ovulation. But then dhiig ma ku dhaco marka gabadhaas oo kaleeto, dhiigeeda qalqal waa abnormal bleeding ay haysanaysaa. Tan kaleeto dad badan oo yaryara cudurkaas qabaan, a lot oo Mareykanka aan ku aqaano dadka yaryar ka bilowda, and then later on minkaada dhan wuxuu ka dhigayaa, wuu shaari gareynaya cuduro badana ka soo bixi karo. Cudurkan la dhahayo endometrium cancer ka soo bixi karo, type 2 diabetes ka soo bixi karo, heart disease ka soo bixi karo. Ay dhaqtar ma ihi, laakiin waxyaalahan cabaar dhan ku akhrisanay, laakiin waxyaalahaas dhan ka soo bixi karo. So hadda haysatid cudurkaas iska taxadir, dhaqtarka aad daawooyin jiro oo lagu siinayo, daawo waxaa jirto testosterone lagu yareynayo, daawo waxaa jirto diabetes lagu yareynayo, daawo waxaa jirto oo intuu gaarinbo endometrium cancer intuuba gaarinbo. Insha Allah ilaahay ma ku gaarsiiyo kulligiinbo, laakiin iska taxadir. And then waxaa u baahantahay inaad dhiigagaas aad ku dartid hormonka la dhahay AMH na waxaa waaye anti-malaria hormone. Muxuu yahay? Waxa waaye hormonka oo la ogaanayo inta reserved eggs follicles you have in your ovaries, inta ku hartay. Naagaha markay sii weynaanaan da' sii gaaraan ukunta oo because ilahay
ukuna hal marna wada siiyay intaas waxay ku jirayaan all the follicles and all the eggs that you need in the whole wide world meeshaasay kugu jirayaan adduunka in your lifetime. markaas ka bacdi maalin kasta markuu dhiig uu kugu dhaco wixii oo yaraayeen oo immature ka ahaayeen mature imaanayaan ka bacdi banaanka usoo baxayaan ka bacdi waxay soo marayaan tubeskaaday soo marayaan ka bacdi waxay imaanayaan uteruskaada wuxuu ready u noqonayaa inay ay sperm ku dhacdo. marka gabadha saasi uur ku qaadi kartaa laakiin waxyaalo badanaa ka celin karo timeka 24 daqiiqo laga 24 saacadood sometimes ukuntaada meesha ku jiri kartaa sometimes dad kasta kala nuuc waay. Everybody is different. Some people will ovulate more than certain time, you know, so like if the sperm meets the egg then it becomes a baby, but if not it misses it, it becomes your period. So saasi u shaqeysaa your menstruation, so saasi u shaqeysaa. But hormonadaas iska soo fiiriya insha Allah, vitamin D iska soo fiiriya, haddaa qaadanaysiin folic acid kaniiniga la dhahayana waa ina B complex vitaminada inaa soo gadatay because makuu shaqeynayo waa isla shaqeeyaan. But anyways hadda maanta waxyaalahaas ma usoo galin vitamina inaan ka hadlo, waxaan usoo galay inaan hormoonada ka hadlo. hormoonkaas 3 hormoon iska soo fiiriya, waxaan kusoo dartiin testosterone kusoo dara, waxaa ku dartiin so I told you guys FSA fiiriya insha Allah, vitamin D iska soo fiiriya, haddaa qaadanaysiin folic acid kaniiniga la dhahayana waa ina B complex vitaminada inaa soo gadatay because makuu shaqeynayo waa isla shaqeeyaan. But anyways hadda maanta waxyaalahaas ma usoo galin vitamina inaan ka hadlo, waxaan usoo galay inaan hormoonada ka hadlo. hormoonkaas 3 hormoon iska soo fiiriya, waxaan kusoo dartiin testosterone kusoo dara, waxaa ku dartiin so I told you guys FSH, LH, testosterone and AMH. so saddexdaas afartaas kusoo iska soo fiiriya insha Allah. khayraan ii rajeynaya inuu warka igu sii bato marabi. hormoonadaas ku iska soo fiiriya and then decide what you want to do. hadduu ilaahay ma aragtay aad si caadi u dhali kartid then caadi u dhal. healthigaada ka fikir, like we drink a lot of coffee and all that. But anyways, I wanna say have a good day and have a good night, and we love you all. Assalamu alaikum.